soo dhawaada marka la iyo muuqaalkan waxaan ugu jawaabi doonaa su-aashaas oo nalaga soo weydiiyey TikTok-ga. su-aashaas oo ah walaal ma ii sheegi kartaa adoo maxsan sidee markaan wax sharaxayo fareemka mobilka sidee gees usoo saaraa muuqaalka. walaal ugu horreyn waxaad sameynaysaa laba muuqaal waa inaad duubataa, muuqaalka caadiga ah oo kan hadda duubayno iyo muuqaal kale oo ah screen recorderka waa inaad duubataa markaad wax sharaxayso mobilka waa inaad ka duubataa. tusaale waxaan sameynayna hadda waxaan soo furayaa mobilkii aan soo furaa. mobilka markaan soo furo maxaan sameynaynaa waxaad tagaysaa horta Play Store ka tagaysaa. Play Store markaad searching markaad waxaa qoraysaa screen recorder markaad qortid waxaa kuu soo baxaya kaamirooyin badan oo lagu duubo ama looga talagalay in lagu duubo markaad wax sharaxaysid shaashada mobilka. waxyaabo badan ku jiro. ani hadda waxaa la soo degay mid ka mid ah kuwaas waxay igu jirto midaan ay igu jirto aan ku calaamaday oo tan ah taasaan la soo degay. ani hadda way igu jirtaa maadaama ay igu jirto waa kasaa mobilka igu jirtaa. waxaan sameynaynaa hadda si caadi direct u socotaa muuqaal ay duubaysaa muuqaalka hadda aan kugu sharaxayo waatana haddaan ku tuso mar labaad aan ku calaamadayo mobilka iyadoo ku jirto waa tasaa kaamiradan waay. maxaan sameynaynaa tusaale markaa wax sharaxaysid muuqaalka markaa bilowdid kadib waxaa sameynaysaa sharaxaad markaa bilowdid. tusaale waxaa leedahay ugu horreyn markaan rabno inaan la soo degno applicationka WhatsApp waxaan sameynaynaa halkaas settingkaas tagaynaa ay leedahay minaa waxaa calaamadeynaysaa meeshaas settingka tagaynaa kadib waxaan qoraynaa WhatsApp aan qoraynaa WhatsApp ayaan qoraynaa WhatsApp halkaasaan qoraynaa WhatsApp markaan qorno setting aan leedahay tusaale sharaxaadada waa tasaa maxaan sameynaynaa kadib waxaan isku soo laabanayna muuqaalka markaad duubtid waxaa sameynaysaa ani hadda inta badan muuqaalada waxaan ku dhidgareeyaa applicationkana ku dhidgareeyaa inta badan applicationka aad wax ku editgareynayso ayaad soo furnaysaa. hadda kana ku editgareeya halkan markaan joogo waxaan soo furnaa new project ayaan soo furnaa new project markaan soo furto maxaan sameynaynaa waxaan soo qaadanaa muuqaalkii haddii aan duubayay markaan kuu sharaxay aan soo qaadanaa muuqaalka markaan soo qaatay aad aan leeyahay aad markaan dhaho maxaan sameynaa aad markaan dhaho marka hore oo sii wadaaya qaybta waxaan geenayaa qaybtana ka jaraya muuqaalka maadaama uu bilow ahay qaybtana ka jara qaybta maqaskaana tagaa sleep ayaan leeyahay sleep markaan sameeyo delete aan leeyahay qaybtana ka jaraya sorry qayb badan ka jaray qaybta markaan iska jaro muuqaalka aan deleedo hadda muuqaalkii waa kana waa muuqaal caadi ah background cagaaran iga dambeeyo waa inta badan muuqaalka saas studio ku duuba marka halkaas markaan marayso sharaxaadda tusaale hadda sharaxaadda in halkaan ka bilaabataa markaan dheynay tusaale hadda fiiri halkaan markaan maraynay waxaan dheynay bal fiiri Play Store ka soo furnay markaa marayso sharaxaadda meesha aad ka bilaabaysid waxaa sameynaysaa muuqaalka joojinaysaa kadib maxaad dooranaysaa halkaas waxaa ka dooranaysaa qaybtan yar oo ku calaamaday oo hoos ku qorantay overlay ay ku qorantay ka dooranaysaa overlay markaad dooratid aan soo doorno markaad dooratid waxaa sameynaysaa add overlay aan leenahay add overlay markaan ano automatically wuxuu geen doonaa galeriga mobilkiina kadib waxaa soo dooranaysaa muuqaalkii aad duubtay oo screen recorderka ku duubtay aad aa leedahay aad markaad meeshan kuu soo kori doono maxaa sameynaysaa fartaada saas u qabanaysaa oo jiidaysa geesa geenaysaa haddaa rabtid muuqaalka oo shakhsidaada ah fartaada ku riix asiga naftiisa soo jiid waxay rabsaan u leex kan markaas u leex kan mobilka shaashada ku laabo halkaas keen halka markaa joogto waxaa sameynaysaa mobilka muuqaalka caadiga ah oo adiga hadlaysid kan screen recorderka ma kan kale codka ka jaraysaa codka waxaa siinaysaa mobilka kale codka kale siinaysaa oo mobilka screen recorderka ku duubaysay adoo wax sharaxaysid waa ka tusaale aadan